بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada walaalaha sharafta leh awlaashin Saacidi Ismaa Cali ku soo dhawow channelkayga Saacidi Soap. maanta waxaan idin wadaa cashir kale oo ah cold process soap. saabuun qabow lagu hagaajiyay marka saabuun badan aan sameeynaa 1 kilo saabuun ah oo kala badan aan ku daraayo aad u qurxinaayo marka daawasho wacan. halkan waxaan ku haysanaa 1 kilo oo saliida olyolibada ah olive oil ama olyoliba qof walba soo yaqaano. intan waxaan ku haystaa 285 gram oo biyo ah. intan waxaa igu jiro 145 gram oo sodium hydroxide ah. sodium hydroxide waa la dhahaa causticna waa loo yaqaanaa meelaha qaar laakiin sodium hydroxide waa magaceeda. waa isku soo daraa labadan maadada marka isticmaalaysid oo isku dareysid meel hawo leh gloves isticmaal goggles waxa indhahaada oo maxay tahay inay ku soo faniinaan ka ilaalinayo marka isku dareysidna maxay tahay isha caustiga waxa ku dareysaa biyaha laakiin hadaad biyaha caustiga ku shubtid waxay sameynaysaa wax qarax amal ay sameynaysaa laakiin hadii aad caustiga aad ku shubtid biyaha waxa waaye si tartiib ah ay isku la falgalayaan laakiin biyaha marnaba biyaha ha soo qaadin caustiga meel yala ku shubin. isticmaal gloves jirkaada ka ilaaliyo indhaha wax ku ilaaliyo goggleska sawirkiisa meeshan soo saari doona ma aqaan Soomaali wax lagu dhaho okiyaalo kale waa qaadan karto okiyaalo caagi ah oo indhaha kaaga ilaalinayo intaas taxadar kuugu filan marka aad ay maadadan kulushahay in aad la isaga ilaaliyo ay u baahan tahay marka waa soo diyaarinayna waa isku soo noqonayna insha Allah. caustigayga waa soo diyaariyay ama sodium hydroxide qof walba soo yaqaano iyo biyaha isku soo shubay way soo qaboobeen marka waan isku darayaa insha Allah. daawasho wacan marka ku dareysid si tartiib ah ugu dar iyo ugu soo faniinin weelkan waa ugu yaraanaya waa iska bedelaaya insha Allah. weelka hore waa weelkan waa yar yahay marka kan weyn aan ku gudsanayna insha Allah. digsigan oo isticmaala weel bira marka isticmaalaysid stainless steel isticmaal aluminium lama isticmaalo wuu la falgalaya aluminium lama isticmaalo saabuunta marka la sameeynaayo wuu la falgalaa inta insha Allah intaasna macluumaad waa dheeri ah. صابون ayay isku shiidaysaa marka saabuun ayay noqotay markay soo yara culusaato trace ay gaarto yara culusaato marka caadi waa in ka soo dhigtaa ismaaciil diyaar u tahay. waa kala qaybinaynaa sida kala raac ugu shubno shan kala haystaa shan qayb inaan ka dhigo waaye. green kan ku daraya marka hore cagaarka
laba qaado yar. mayka waxa waaye kalarada ugu fiican waaye, dhulkaa laga qodaa, maahan kalar la hagaajiyo chemical maahan. marka saabuunada qiimo inay ku darto maahan, waxba ma ka dhibayso. inta waxaan ka dhigayaa white, kalarka cadaanka. cadaan yar oo kor usoo qaadaya. saabuunta awal markaan kalar lagu darin ba cadaan iska noqonaysaa, laakiin cadaankaadu sii xoojinayaa. kana white waaye, kan waxaan ku dari doonaa insha allah kala pink. mayka marka hore saliid waa kusoo qasi kartaa, asoo saliid oo lagu qasay waa ku shubi kartaa. kana binkiyan kasoo dhignay, kan waxaan ku dari doonaa purple. kana purple ayaan kusoo darayaa. noo haray kalar black ku darsan kartaa, ama charcoal, activate charcoal na black fiican oo qurux badan ay ka dhigaysaa. marka insha allah iyadana soo geli doonaa anoo dhuxul ku sameynayo. activate charcoal-ka aad skin-ka ugu fiicanta. marka hore waxaan sameynaynaa saabuun oo black and white ah. marka kalarkii aan tartiib ugu shubaynaa, black iyo madow iyo cadaan aan ku bilaaba insha allah. saasaa ugu wadaysaa ilaa uu ka buuxsamo. madow iyo cadaan isku dhex jira noqon insha allah. saabuuntan waxaan ka dhigaynaa green, waxaan ka dhigaynaa cagaar iyo pinky iyo cadaan iyo purple isku jiro.
kalarada isku bedelaysaa insha allah ilaa ay saabuunta ka buuxsanto kalara qurux badan oo isku dhex jira ay noqonaysaa. marka ayadana is dhex gelinayna insha allah saas ayadana saabuun qurux badan ka soo baxayso. saabuunta oo afaraad waxaan isticmaalaa laba kalar oo black iyo pink. saabuunta afraadna design-kaas ka dhignay insha allah. saabuunta shanaadna waxaan ka dhigaynaa purple iyo cadaan. kalarada aad isku dhex galaya maasha allah. design-kaas ka dhigaynaa insha allah. saabuunta lixaad waxaan ka dhigaynaa cagaar iyo pink. kalar macaan ayaa kasoo baxaa insha allah. ayadana saas isku dhex galaysaa. saabuunta labaad waxaan ka dhigaynaa purple iyo black. saabuunta insha allah waxa waaye sida rabtaa u qurxin kartaa. saabuun oo soo jiidasho looga dhigi kartaa. marka wax badan aan soo geli doonaa insha allah. kalara badan meesha nooga halaabo laakiin dhib ma leh. saabuun qurux badan inaan soo saarno rabnaa. saabuunta sideedaad waxaan ka dhigaynaa kala green oo plain ah. kala greenkan afakaadhada markaa sameynaysa saliid oo saabuunta afakaadhada oo isticmaali kartaa. light yar inaad ka dhigtid. saabuunta sagaalaad waxa waaye green iyo purple iyo white. hadaartid hoos inay hal kalar camal ka noqoto kor leed ka qasaysaa. marka insha allah anaa kor leed ka qasaynaa. hoos waxaa laga yaabaa purple keliya inay ka noqoto ama green iyo purple isku jiro. kor leen ka qasnay marka kor inay design ka yeelato. marka insha allah waxaan rajeynayaa in wax badan aad ka faa'iideen. marka waa fiirinaynaa 24 saacadood kadib markay qalasho saabuunta inay sidee noqoto. 24 saacadood kadib saabuunadu way qalaleen waa bixinaynaa. saabuunta inay qalasho macnaheedu maaha in la isticmaali karo. waxay u baahan tahay curing time wax la dhaho 4 week bil ay u baahan tahay inay banaanka taal ay qalasho. masha allah kalar qurux badan oo noqday. kalar qurux badan. gadaalna masha allah in iskor saaray camal. masha allah greenka iyo pinkigana way isku soo baxeen. kan cagaar baleyn ah waaye. dhibco yar oo kalaraa gaaray laakiin sidiis ku qurux badan yahay. marka video waan ugu dheeraaday insha allah. soo gaabinaynaa. saabuunahaas kalarka qurux badan ayay noqdeen.
كلر لا دين كرا معها دمان إذا متكلم كقرح بدنيا هي لما أنتين كفايدي سواعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.